Assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago filim Chinese boqortooyo ah oo lagu magacaabo Detective D daawasho wacan iskana taxadara filimku wuxuu ka bilaabanayaa magaalo qadiimiya oo ku taala China waxaan aragnaa imbaradorkii boqortooyada oo seef sixir ku abaal marinaya generaalkiisa oo lagu magacaabo Detective D seefta draagoonka ahna waxay qiimo u lahayd boqorka iyo boqortooyadiisaba waana mid awood badan sidoo kalena seefta waxaa loo yaqaanaa draagoonka dabka ah seefta waxaa loo tixgeliyaa inay ka adkaan karto sixir kasta oo adduunka dushiisa yaala seeftii awoodda badnaydna waxaa la siiyey General D sababtoo ah wuxuu badbaadiyey boqorka iyo boqortooyadiisaba laakiin boqoradu ma doonayn in la siiyo seefta General D waayo waxay ka baqaysay inuu seefta ayaga kula soo kala wareego laakiin boqorku hadalkeeda waxba kama soo qaadin sababtoo ah cabsideeda joogtada mar walba wuxuu u arki jiray micno darro intaa kadib boqorada waxay boqorka weydiisatay inuu seefta ka soo celiyo General D balse wuu ka diiday wuxuuna u sheegay in wax uu baxshay uusan soo ceshan doonin Dina uu u qalmo seefta boqoradii markay hadalkaas maqashay way iska aamustay laakiin ma doonayn inay arrinta halkaas uga harto sababtoo ah ayadu ma jeclayn in wax qaali ah qof la siiyo sidaas darteed habeenkii waxay la kulantay nin lagu magacaabo Yunji boqoradu asaga waxay u xilsaartay inuu seefta ka soo xado Detective D qorshahoodana waxaa ku jirtay haddii seefta ay ka xadaan D in boqorku uu ku ciqaabi doono dil intaa kadibna seefta waxaa loo soo celin doonaa qasriga intaa kadib waxaa la ogaaday Yunji inuu ahaa saaxiibka Detective asaguna ma doonayn inuu saaxiibkiis wax dhibaato ah geliyo kadib boqoradii ayaa arrintaas ogaatay waxayna u ballan qaaday inaan wax dhibaato ah la gaarsiin doonin Detective iyo qoyskiisa boqorkana ay ayada kala hadli doonto Yunji waxay u ahayd howl adag oo loo xilsaaray wuuna ka cagajiidaya arrinta boqoradu waxay sidoo kale goobta ugu yeertay dad kale oo hawsha la qaban doona isaga waxayna ahaayeen sixiroolayaal dhar isku nuuca wata waxayna saamayn jireen dadka kale ayagoo adeegsanaya sixirkooda sixiroolo kastana wuxuu lahaa xirfadiisa gaarka ah intaa kadibna waxay soo bandhigeen sixirkoodii ayagoo boqorada amar ka sugaya halka Yunji uu ka fikiraya arrinta saaxiriintuna waxay diyaar u ahaayeen inay hawsha qabtaan aad bay u khatar badan tahay markii qof aan la garanayn uu hawshaada ku lug leeyahay intaa kadib waxay boqoradu Yunji u sheegtay inaysan ku tiirsanaan karin dad shisheeye waxaana laga yaabaa in dadka hawsha la qabanaya qaarkood ay cadowga u shaqeeyaan ayna isku dayayaan inay seefta qaataan uuna arrintaas ka feejignaado sidoo kale Yunji waxay boqorada u sheegtay in Detective yahay nin geesi ah oo aad u aqli badan aysan fududeyn in seeftiisa laga qaado ama laga xado sidaa darteed ma awoodo inuu kaligiis hawsha qabto waxaana loogu yeeray qof kale oo hawsha ka caawiya ayaga waana inay hawsha u qabtaan sida ay boqorada doonayso kadibna waxaa lagu soo daray gabar lagu magacaabo Watermoon waxayna ayaga tusaysaa xirfadeeda ayadoo ka soo baxday biyaha waxaana ku jiray mid ka mid ah oo awooda in hawada waxa ku jira oo dhan uu baabiyo sixiroolo kalena xeeladiisu waxay ahayd inuu gubo wax walba hogaamiyahooduna wuxuu lahaa xirfado badan waxaana ka mid ah inuu lahaa wax ka badan 2 gacmood dhammaantood waxay qorsheynayeen siday meesha uga saari lahaayeen Detective intaa kadibna waxay dab qabasiiyeen dukaanka rinjiga lagu gado iyo ninka iskale gurigiisa waqti kadibna waxaa goobta yimid Detective si uu kiiska u baaro waxaana meesha lagu arkay mid ka mid ah kooxda Yunji oo lagu magacaabo Flying Smooth wuxuuna leeyahay xirfad uu gebi ahaanba isku qarin karo uuna ku baabi'in karo waxyaabaha hawada ku jira wuxuuna halkaas u yimid inuu basaaso General D halka xibnaha kale ee kooxda ay aadeen guriga Detective si ay halkaas uga soo qaadaan seefta awoodda badan intuu D dukaanka baarayay ninka dukaanka iskale aad ayuu uga xanuunsanayay gubashada dukaankiisa wuxuuna ka walaacsanaa sawir gacmeed meesha ku gubtay intaa kadibna waxay ogaadeen inaan wax hanti ah laga dhicin dukaanka wuxuuna xaqiiqsaday inay arrintan tahay mid qorshaysan kadibna mid askartiisii ka mid ah ayaa isku dayay inuu soo qaado sawir meesha yaalay balse Detective ayaa ka celiyey dhanka kale milkiilihii dukaanka ayaa isku dayay inuu sawir meesha yaala qaado balse gacmihiisa way isbedeleen markuu taabtay kadib jirkiisi oo dhanna wuu qallalay intaa kadibna kiimika cad ayaa afkiisa ka soo baxday halkii ayuuna ku dhintay intaa kadib Detective ayaa shakiyey wuxuuna arkay qiiq duulaya saqafka guriga dushiisa
intaa kadib qiiqii ayaa bilaabay inuu hawada isku qariyo. Diina wuxuu bilaabay inuu soo dabagalo, qiiqa ayaana goobta isaga baxsaday. intaa kadib qiiqii duulayay wuxuu fuulay minaaradda. Diina wuxuu ka daba diray qiiq kale oo duulaya. dabadeedna Detective D wuxuu meesha ku arkay dheri weyn, wuxuuna xaqiiqsaday in dherigaas wax ku jiraan. markaasna dhinaceeda ayuu u soo booday si uu u qabto. askartiisana wuxuu ka codsaday inay ka feejignaadaan qiiqa duulaya. markay dhammaantood dheriga ka fogaadeen, wuu dilaacay, waxaana ka soo baxday hawo sumaysan. dhanka kale guriga Detective D waxaa lagu arkay Watermoon iyo sixiroolihii dabka oo isqarinayo, waxayna gudaha u galeen guriga. intaa kadibna waxay furfurayaan sixir meesha lagu xiray. markay sixirkii xalliyeenna horay ayay u socdeen. ugu dambayntiina waxay gaartay sanduuqii ay ku jirtay seefta, waxayna aqoon weysay seefta saxda ah oo ay qaadan lahayd, sababtoo ah waa la khiyaanay. waxaana meesha taalay 2 seef oo isku eg. intaa kadibna dhowr dheri ayaa meesha ku burburay. askartii oo dhanna waxay maqleen codka alaabta burburtay, goobta ayayna u soo kala ordeen. kadibna waxaa la qabtay Watermoon iyo sixiroolihii dabka. intaa kadibna waxay gubeen shabaqii lagu qabtay, kadibna goobta ayay iskaga baxsadeen. dhanka kale Yunji ayaa goobta yimid, kaasoo caradiisa ku muujinaya qiiq duulaya, asagoo u caraysan Detective, sababtoo ah qiiqa duulaya wuxuu isku dayayaa inuu dilo Detective. Yunji ayaa afartoodii ka haray, wuxuuna ku amray in ay wax kastaba ha ku qaadatee ay dilaan General Detective. laakiin dhammaan awoodihii sixirka ee Detective lagama adkaan oo weli xal looma helin. maalintii xigtay waxay la kulmeen boqoradda ayagoo ka xishoonayo, sababtoo ah waxay ku guuldaraysteen hawshii ayaga loo diray. boqoradduna ayaga aad ayay uga caraysneed, sababtoo ah waxay ku guulaysan waayeen hawshii ay u dirtay, seeftiina meesha ayay ka soo qaadi waayeen. intaa kadibna boqoraddu waxay howlgalka ka wareejisay Yunji, waxayna hogaamiye ka dhigtay Tai, kaasoo ahaa hogaamiyihii sixiroolaha lahaana wax ka badan 2 gacmood. sidoo kalena wuxuu isticmaali jiray sixirka dabka. isla habeenkaas boqoradda iyo Yunji oo wada socda waxay booqdeen xabsiga, waxayna boqoraddu meesha kula kulantay nin. boqoraddana waxaa la ogaaday in maxbuuskaas uu aad ayada muhiim ugu ahaa. boqoraddana waxay ka tala qaadanaysaa asaga ayadoo amaradiisa ku shaqaynaysa, wuxuuna ku tala siiyey in si dhaqsiyo leh seefta looga soo celiyo Detective. sidoo kalena ninkii maxbuuska ahaa ayaa ayada u soo jeediyey inay hadda dilaan Detective. maalintii xigtay waxaan aragnaa Yunji oo aaday guriga Detective si uu ula kulmo. intuusan hadlin Yunji, Detective ayaa hadal ka qaatay, wuxuuna u sheegay inuu ogyahay qofka dhibaatada ka dambaysa oo dhagarta u maleegaysa inay tahay boqoradda. intaa kadibna Detective wuxuu Yunji siiyey warqad ay ku qoran tahay xalxiraalaha arrinta. kadibna Yunji wuxuu ogaaday wax ku saabsan seefta markuu xalliyey xujada. intaa kadib Detective ayaa sidoo kale u sheegay inay musiibo weyn ay ku soo socoto boqortooyadooda, labadoodana laga doonayo inay si wada jira musiibadaas uga hortagaan. intaa kadib Detective wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey inuu seefta qarinayo, wuuna baxay. sidoo kalena wuxuu ogaaday in la soo dabagalayo oo ay dad badan isku dayayaan inay seefta ka xadaan asaga. dhanka kale gabar ayaa waxay suuqa ku basaasaysaa gacanyaraha Detective. markuu dhex socday gacanyaraha suuqa wuxuu dareemay qof asaga soo dabagalaya. intaa kadibna indhaha ayuu isku qabtay, wuxuuna u muuqdaa mid la madiideeyey ama la sixray. intaa kadibna qof ayaa u yimid asaga intuusan saaqin sixirka. ninkaasna qof kale ma ahayn ee wuxuu ahaa Detective. kadibna goobta ayuu ka kaxeeyey gacanyarihii asagoo aan wax miira lahayn. dhinaca kale nin ayaa sixir la yaab leh dadka hortooda ku soo bandhigaya, waxaana hareerihiisa jooga dad badan kuwaasoo sixirkiisa la yaaban. wuxuuna aad u doonayay inuu helo awoodda ugu sarreysa ee xukunka sixiroolayaasha. intaa kadibna wuxuu gacanta ku hayay boqorad asagoo sixirkiisa u adeegsanaya. subaxdii xigtay boqoraddu waxay aaday xafiiska Detective, waxayna halkaas kula kulantay gacanyarihiisa, waxayna wax ka weydiisay Detective. wuxuuna gacanyarihii ayada ugu jawaabay inuu Detective gurigiisa aaday si uu ula kulmo qoyskiisa. hadda boqoraddu waxay heshay fursadda ugu fiican ay qorshaheeda ku fulin karto. intaa kadibna dadka waxay u soo bandhigtay seef been abuur ah, waxayna u sheegtay in Detective ay ka dhuntay. waxayna sidoo kale sheegtay in shaqada laga joojiyey asaga maadaama uu seeftii qaaliga ahayd uu dayacay.
intaa kadib caawiyihii detective ayaa soo cararay si uu dhacdada ugu sheego asaga. intaa kadibna waxaa soo daba gashay Watermoon. markuu arkay inay soo daba galaysana wuu qiyaanay wuuna ka dhuuntay. kadibna wuxuu wax walba u sheegay detective. hadda waxaana la tusayaa waraaqado qadiimi ah. kaaliyaha detective-na mar kale waa la sixray. sheekada soo jireenka ah ee calaamadaha halkan lagu muujiyey waxay u laabanaysaa hindidii hore, kuwaasoo calaamadahan caabudi jiray. calaamaduhuna waxay agtooda ka ahaan jireen wax muqadasa oo ay ilaalin jireen. calaamadahan sixirka ah waxay sidoo kale xakamayn karaan maskaxda dadka ayagoo madiidaynayo ama sixraayo. waxaana la ogaaday ninka sixirka nuucaana alifay inuu ahaa jin, wuxuuna doonayay in boqortooyadiisa uu ammaankeeda ku sugo. sidaas darteedna wuxuu mar walba la socon jiray boqorka, waxaana loo yaqiinay dagaalyahanka boqorka. waqti kadib boqorkii wuxuu dareemay hanjabaad kaga imaanaysa dagaalyahanka dabaysha, sidaa darteedna wuxuu xabsiga dhigay dagaalyahankii dabaysha. intaa kadib boqoraddu waxay xabsiga kula kulantay dagaalyahankii la xiray, waxayna asaga ka codsatay inuu boqorka u madiideeyo si uu amarkeeda u qaato uusan hadalkeeda war oga soo celin. dagaalyahanka dabayshana wuxuu boqoradda ku xujeeyey inay u keento seefta awoodda badan, waana sababta ay seefta u daba taagan tahay. waxaa kale oo halkaas lagu ogaaday in detective uu yaqaanay dagaalyahankaas iyo jiritaankiisa. dagaalyahankaasna wuxuu doonayay inuu ka aargoosto madaxda boqortooyada. qaybtii koowaad ee filimkeenna halkaas ayay ku soo dhammaatay saaxiibayaal. la socda qaybta labaad. haddii aad muuqaalkan dhammaadkiisa nala soo gaartayna fadlan muuqaalkan laag saar, channelkeennana ku soo biir oo subscribe dheh. la joogistaadu annaga ayay qiimo noo leedahay.